waxaanu joognaa iskuulkii magaalada Kaamtug waxaa halkan lagu dhagax dhigayaa oo ay dhagax dhigaysaa runtii guddida horumarinta degmada Salaxley hal muxuu ahaa fasal oo lagu kordhiyay dugsiga halka fasal waxa bixiyay oo ugu deeqay runtii dugsiga iyo dadka deegaanka Kaamtugba xisbiga mucaaradka ah wadani oo runtii markuu baahida arkay isla markaana uu tixgeliyay codsigii odayaasha deegaanka runtii gartay inuu ugu kordhiyo hal fasal dugsiga muxuu ahaay magaalada Kaamtug guddida horumarinta oo runtii aniguna aan xubin ka ahay guddoomiyihiina uu joogo ayaa runtii u igman in muxuu ahaay waxyaabaha ay bulshada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ka qayb qaadanayaan horumarka in runtii ay u igmadaan oo mandatekeeda runtii haysata guddidaas runtii dhagax dhigi doonta insha Allah taala intuu dhamaanayna la socon doonta halka fasal waan runtii mahad celinaynaa xisbiga mucaaradka ah wadani ee wali aan isagoo runtii ku guuleysanin muxuu ahaa taladii dalka waxaan ku naqaanay xisbiyada mucaaradka ah inay ballan qaadiyo sameeyaan oo yiraahdaan markaan soo baxno ayaan waxa qaban doonaa laakiin waa ilaahay mahadiin xisbigii mucaaradka ah isagoo wali mucaarad runtii uu dadkii muxuu ahaa wax u qabanayo waan runtii uga mahad celinaynaa xisbiga mas'uuliyiinta xukuumadda ka socday deegaanka yimidna MCH-kii ay deegaanka ugu ballan qaadeen waynu ka doonaynaa in runtii insha Allah taala keenaan haddii ay keeni waayaan oo ay la mid noqdaan dhagaxaantii hore ee deegaanada hore loo dhigay dhammaan tuulooyinka ilaa xuduudka oo dhan daatana waxaanu leenahay insha Allah taala waxa keeni doona xisbiga imika isagoo mucaarad ah dhismayaashii waxbarashadii iyo kordhinayay caafimaadkiiba kaasa dhis doona meel iska day haddii aan diyaar ahayn dhammaan deegaanada Salaxley oo dhan waxay u badan tahay meel mooyaane inay ka dhisan yihiin labada galaas waana dhibaato wada jirta laakiin waxa ilaahay mahadiya maanta in dhibaatadii soo yaraanayso galaaskii saddexaad lagu daray Kaamtug insha Allah waxaan idin rajaynayaa mid kale amba xukuumadda ha noqoto amba xisbiga mucaaradka ha noqoto amba mid samafalaha oo bilaadan ha noqotee kaafraadna in la idinku daro insha Allah taala oo sida hawshiinu dabeetana dugsiga hoose dhaxa ku soo afgado ayaa horta ilaahay idinka jeenaya qof kasta oo wax idin sidana mahadnaq buu idinka muday xukuumadda hadday inoo kanto waa loo mahadnaqayaa hadduu xisbi mucaarad inoo keeno waa loo mahadnaqayaa mid kale oo samafala oo deegaanka ka mid ah hadduu inoo keenana waa loo mahadnaqayaa marka imaka waa gaarigii alaabta sidii isa soo taagay bariba waa la bilaabaya lagaxina uu yaalaan isna way taala gaarigii goriyaa sidii iyo jingadaana waa alxamdulillaah rabbil caalamiin runtii waxaynu oran karnaa waa wax qabad xilligiisii ka soo horreeyay ballanqaadkiisii ahaa MCH-ka waa ka sugaynaa waa xukuumadeennii way nooga faro dhuudhuubantay iyadana insha Allah bariye saa dambe iyadana xukuumaddana bariye saa dambe ayaynu ka rajaynaynaa annaguna waan weydiinaa su'aasha waayo waxaanu nahay mas'uuliyiintii degmadan loo igmaado dalku wuxuu leeyahay maamul daadajintii maanta waxqabadkan aynu wadnaa waxa weeyaan waxqabadkii uu ballan qaaday xoogayay xisbiga wadani maalintu halkan idinku yimi khadar waa ka gaarigii taagana hadda la bilaabaya cid kasta oo wixii ballan qaaday reer Kaamtugow waa la xisaabtamaynaa idinkuna waa la xisaabtamaysaan waxa yaala dhagaxaan fara badan xukuumaddu dhigtay ninkii dhiga waynu ka rabnaa berri baa cudug inaga doonaya horta waynu ka rabnaa isagoo kaa dhisa mooyaane maynu wada hadlaynaa reer Kaamtugow ninkii shalay kuli waxbaan kuu qabanayaan kuu keenin markuu berri kugu soo noqdo dee wixii ma sidaabaa meeshii taalla taa waxaan kaga gudbayaa xisbigan wadani ee soo socda isagoon taladii dalka qaban maanta gartay carruurta galaasada isdul saaran uu kala qaado berri toole markuu yimaadana insha Allah bismillaahi kariim boodhankii buu diin taagi carruurtii oo dhan baa halkaa wax ku dhigan iskuulkaa la ballaadhin biyahaa la idiin gelin caafimaadkaa la hagaajin noloshu waxay ku noqon doontaa noloshii caadiga ahaydee sida magaalooyinka ka jirta reer Kaamtug dib u MCH la'aan maayaan dib u iskuul la'aan maayaan dib u biyo la'aan maayaan waa samir badantiin ragga maanta xukuumadda haya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in badan ma ka maqlay isagoo halkan geelan ku raaci jiray waxay ahayd inuu halkan ugu horreysiyay wax qabadkiisa se maanta inaynu tuulooyinkii
ugu dambeeyeyno la ilaabanahay halkan aynu ku cadaynaynaa warahmatullahi wabarakatuh halkan waxaan maanta ku dhagxadhignaa kalaaskii lagu darayay xisb iskuulkan Kaamtuug kalaaskaas oo aad iyo aad ay baahi ugu qabteen ardayda deegaankani sababtu tahay ilaa 7 iyo ilaa uuladii laba fasal quraata u dhisan marka baahida ugu weyn ee ka jirta waxa weeye in galaasyadii loo kordhiyo bay ahayd marka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa xisbiga wadani ee isagoo mucaarada maanta kalaaskan inoogu deeqay isla markiiba la fuliyey dhagax dhigna maahay waa la jeexayaa alaabtina way inoo taagan tahay gaarigna waa taagan yahay waa dhismiba bilaabmaya waxa weeyaan dhisid bilaabid iyo dhagax dhigiisii waa wada socdaan wata xisbiga aad iyo aad baynu uga mahad celinaynaa dadkana waxa weeyaan maanta waxaynu u baahannahay tusoo taabsi wax qabad dhaba baynu u baahannahay uma baahnin ballanqaad xilliga ballanqaadka waynu soo dhaafnay Kaamtuugna 14 sanadood dawladda xukuumadda haysatay wuxuu baahayd meel la isku sawiro oo kolba dhagax loo dhigo Kaamtuug maanta uu ka ilbaxay dhagax la dhigo iyo dhagaxaan dambe kolba la soo dhigayo ballanqaad dambe xukuumadda waqti ay ballanqaad sameysana uma harinba 14 sanadood waxay ka weynay maanta kuma fadhinee cidii wax qabanayso meel wax la qabsanayna qof siyaasi oo ujeedalay cid kasto siyaasi oo halkan timaada way iska tagaysaa cid kasto oo dana gaar ah halkan timaada way iska tagaysaa inta halkan degan u baa isu soo hareysay iyadii wixii loo qabtay baa isku soo haraya reer Kaamtuug wuxuu baan leeyahay wixii idinku soo haraya ee maanta gudoomataan waxa ilaahay baa mahad leh ilaahay ayaa mahad leh cidda maanta halkan iskuulka noo dhisaana waa mahad bay leedahay waan u mahadnaqaynaa waxa weeye baahida iyadu way farabadantay dumarka ninka qodaxdu muddo salaxdii baa lagu carraa qofka dumar iyo soo ilmu ka laalaa salax kula carraa ma haysano wax dhakhtaraa ilaa yoomaldiin wax meesha laga dhigay ma jirto intaana waa cid dawladda haysta waan weydiinayno halkan rugtan bilayska way dayacantay waxa weeye ciidanka iyo rugtaba in la saafi gareeyo de way u baahantahay waanu u baahanay biyaanu u baahanay ma garatay wixii kasta ee maanta dhaqaala aaba waanu u baahanay ee horumara maanta kii kasta amba hay'ad ha noqoto amba urur ha noqoto amba dawlad ha noqoto kii kasta amba talyaaniga ha noqdo kii kasta ee wax noo keenayaba waana waan soo dhaweynaa marxaba baan leenahay inamada dhalinyarada soo xilqaamay haddii ay tahay xildhibaanada reer Salaxley haddii ay tahay xusbiga wadani ee maanta halkaa noo dhisaya intaba waan mahadnaqaynaa badin mayno wax cid alaala ciddii wax noo qabanaysana ahlan wa sahlan gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa wadanina waanu rumeeyey arrinkaanu isku ogeyn wuu rumeeyey waa ka iskuulkii magaarigu taagana la dhisaayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa meel kale u bixi maaye dawladdii noo ballanqaaday doonu ka sugaynaa waanu ka sugaynaa iyadana xisbiga wadani wuxuu u ballanqaaday magaalada Kaamtuug inuu u qaban doono isagoo aan wali imanin xukunkii hortayba waxa sheegay iyagoon imanin dadkooda caawinayaan baahiyahooda horta waxa ugu horeysay ka qaban doonaan ay tahay inay iskuulka imaka carruurtu fasaxa ay soo galaan iyaga oo galaaskaasi u dhisan yahay kale oo loogu daro fasaxooda imaka ay soo galayaan inay soo galaan galaaskoodii oo u dhisan iskuulkoodii u dhisan halkaa maanta aynu taaganahay oo iskuulahoo dhismaa ay galaan si ay culayskii u kala yaraado ardaydii galaaska wax ku wada dhiganaysay aniga wuxuu ii soo wakiishay xogayaha guud ee xisbiga wadani inaan arrintaa maaragtay sidii lagu ballanqaaday ay ku fulinayaan oo goobjoog ka ahaano wakiilkiisii anigoo ah iyadoo maanta dhagaxii la dhigayo dhoobadii taallo birti taallo jiingadii taallo looxi taallo insha Allah muddo kooban markay imka fasaxa u soo noqdaan sida la idin sheegay waxaynu halkan maanta ka bilaabaynaa dhagax dhig iyo ballanqaad ma ahe waxa halkan laga bilaabayaa oo alaabtiisii qalabkii noo taagantay baahida reer Kaamtuug hore u sheegteen ee ah fasalka lagu kordhinayo dugsiga
runtii dee xukuumadduna halkan way timi xisbiyada mucaaradkiina way yimaadeen dadka deegaanka reer Kaamtuug iyagaa labadaba baahiyahooda u sheegtay labaduba ballanqaadyo u sameeyeen annagu guddiga horumarintaanu nahay cid kastoo afkeeda ka sheegta ballanqaad waxaan u eegmanahay inaanu daba gallo inaanu weydiino inaanu xafiiskiisa ugu tagno inaanu kawaa ka kululeyno ilaahay ma haddii xisbiga mucaaradka wadani ballanqaadkii uu idiin sameeyey annagoo weli anagu u tegin ee idinku ka codsateen ayuu ka soo ajiibay waan u mahad celinaa anoo ku hadlay afkii guddida horumarinta degmada Salaxley waan u mahad celinaa ballanqaadka ay dadka deegaanka u sameeyeen kana soo baxeen ballanqaadka ay xukuumaddu idiin samaysay waa ka daba teganaa ilaahay idinkii xafiisyadoodan ugu teganaa waxaan filayaa ballanta la kala qaatay waxa ahayd doorashada inta ka horeysay inay fulayaan hadday mucaarad tahay hadday xukuumadda tahay mucaaradkii waa fuliyeen xukuumaddana waa ka daba tegaynaa waa weydiinaynaa waxa inoo waxayna waa wixii doorashada ka horeysa sidii lagu ballansanaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaa xisbiga mucaaradka